munaasabadan oo ahayd daahfurka macadka Soomaaliyeed ee horumarinta iyo cilmi baarista waxaa ka qayb galay golayaasha dawladda oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland aqoon-yahano iyo ururada haweenka. Macadkan oo fadhigiisu noqon doono magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa ka howlgali doona guud ahaan dhulka Soomaalidu ay degto, waxaana ku soo biray xarumaha cilmi baarista ee fadhigoodu yahay Puntland. Guleed Saalax Barre waa asaasaha macadka Soomaaliyeed ee horumarinta iyo cilmi baarista. Horeyna waxa uu soo noqday wasiirka deegaanka ee xukuumadda madaxweyne Gaas, wuxuuna sharaxaad ka bixiyay macadkan iyo ujeedada loo asaasay, isagoo ku dheeraaday baahida xilligan loo qabo in cilmi baaris ka turjumaysa xaqiiqda Soomaaliya iyo sida lagu horumarin karo guud ahaan Soomaaliya laga sameeyo, taasoo ah sida uu sheegay sababta keentay inay ku dhiiradaan hirgelinta xaruntan. boqolkiiba 34 kaliya ayaa ka gudba ganacsiga Soomaaliya marxaladda la yiraahdo marxaladda qaangaarka, inuu ganacsigu cagihiisa isku taago. taas macnaheedu waxa weeye boqolkiiba 70 ganacsi walba oo Soomaaliyeed wuxuu ku burburaa intuusan marxaladda uu cagihiisa isku gaarayo uusan gaarin. waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 80 dadka Soomaalida sabool inay yihiin. macnaheedu maaha dhinaca wax soo galida iyo dakhliga kaliya, laakiin waxbarashada iyo caafimaadkana qayb bay ka yihiin saboolnimadaas. cabirka lagu cabiro horumarka wadamada caalamka oo loo yaqaano Human Development Index HDI-ga, Soomaaliya markii u dambeysay oo laga fiirshay oo daraasad u dambeysay waxay keentay 0.28 bay keentay. meeshan iska rabay in hal uu ahaa meesha u sareysa oo la iska rabo, taasoo ka dhigaysa wadamada ugu hooseeya xagga horumarka caalamka. boqolkiiba 60 dhalinyarada Soomaaliyeed daraasadii la sameeyay u dambeysay waxay sheegtay inay rabaan inay ka baxaan waddanka banaankiisa ay aadaan. boqolkiiba 60 iyadoo isla boqolkiiba 8 ay qaad ka cunaan dhalinyaradaasi, boqolkiiba 11 ay sigaarka cabaan. dalka Soomaaliya waxaa laga jaraa sanad walba in ku dhow 200 milyan oo geed ayaa laga jaraa sanad walba. macadku wuxuu xooga saari doonaa 5 meelood hadduu Ilaahay yiraahdo. dhinaca koowaad dimuqraadiyiinta iyo isxukunka oo runtii muhiim u ah waddankeena. dhowr iyo 20 sanana dawlad la'aan iyo ama dawlad xoog leh inaysan ka jirin. dhibaatada ugu badan ay tahay xukunkiiyo si fiican u soo dhigan la in baaritaano badan lagu sameeyo. lambar 2 nabadda iyo cadaaladda oo iyaduna aasaas u ah ummad walba jiritaankeeda. lambar 3 arrimaha deegaanka iyo maareynta khayraadka dabiiciga ah oo aynu ogsoonahay waddankeenu inuu hodan ku yahay. lambar 4 horumarinta ganacsiga hadduu Ilaahay aynu wada ogsoonahay in Soomaali intooda badan ay ganacsi ay Ilaahay u abuuray inay ganacsi u samaysan yihiin, laakiin xaqaa'iqda hadda aynu soo sheegayna qaybo ka mid ay tilmaamayeen in intooda badan ganacsigaasi uu ku burburo intuusan gaarin marxaladda qaangaarka. qodobka 5aad oo ah qodobka u dhameeya oo ah tayeynta iyo tababarada. macadku wuxuu la shaqayn doonaa dawladda laamaheeda kala duwan, ganacsatada, ururada bulshada ah iyo hay'adaha caalamiga ah. xildhibaan Cismaan Dalmar Xaaji oo ka mid ah golaha wakiilada dawladda Puntland bogaadin kadib waxa uu soo jeediyay talooyin muhiim u ah macadka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo ku qatomo baahida loo qabo in dalka laga helo cilmi baaris ku fadhida xaqiiqda Soomaaliya ka jirta iyo sida lagu horumarin karo siyaasadda iyo horumarka kale ee dalku u baahan yahay. Marwe Aamina Shukri oo ka mid ah haweenka qadinleyda Puntland ayaa waxa ay sheegtay in Puntland ay ka jiraan aragtiyo khaldan oo haysta dhalinyarada, loona baahan yahay in laga sameeyo cilmi baaris, kuwaas oo ay ka mid tahay tahriibka, si ay u fududaato xalkooda iyo in wax laga qabto. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Camay oo daahfuray macadka Soomaaliyeed ee horumarinta iyo cilmi baarista ayaa ku amaaray mudane Guleed Saalax Barre iyo shaqaalaha macadka aragtida wanaagsan ay ku soo kordhiyeen guud ahaan dalka oo ah mid loo baahnaa.
madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ayaa sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay in cilmi baarista macadkan diiradda lagu saaro horumarka oo ka dhigan inay hagaagto siyaasadda lagu hagayo horumarka dalka. waxaan leeyahay way wanaagsan tahay runtii cilmi baaris dalla ma horumaro run ahaantii haddii aan cilmi baaris la samaynin waxa uu ku xun yahay waxa uu ku wanaagsan yahay waxa uu ku xun yahay sidii loo hagaajin lahaa sababta keentay inaynu ku xumaano waxa wanaagsanna in la sii kordhiyo oo barta ay taagan tahay laga sii kordhiyo waa ay fiican tahay laakiin waxaan ku talin lahaa may ku wanaagsan tahay tirada iyo tayada wanaagsan waxaan filayaa run ahaantii hay-addan 5 arrimood oo ay saartay 5taba inay noqon doonto shaqadeedu waa 5 arrimood ee haddii xal loo helo horumar ummadda Soomaaliyeed meel joogtada guud ahaan iyo gaar ahaan reer Puntland aad moodo inaynu ku horumarayno waxaan jeclahay dhammaanteen hadda waynu isugu nimid shirkan marka uu dhamaadana yaan laga kala tegin ha noqoto mid aynu maskax ahaan iyo tala ahaan iyo dhaqaale ahaan mid walba aynu ku taageero waa asaas waa yani base-kii buu sameeyay laakiin waxyaabo fara badan baa runtii la filayaa inuu guuleed ay kaga hor yimaadaan arrintan iyada. Cabdiqani Bardacad, Puntland TV, Garowe.